صحابي عمر بن سعد بوها الأنصاري عمر بن الخطاب العكا دبا دري با ليدي كوفه انتو كسو نقدي امير ايو يدي وان سو دالay anigu in badan waan soo shaqeeyay aakhir al-umr inna waan ku jiray aan iska cibaadeysta iga dhaaf markaas Umar ku yiri maya amir al-mu'minin xaq hadaad igu leedahay ana waan ku adeecay ana maanta ixtiraam oo iga yeelinta waayahay waan ka yeelayaa buu yiri dadna markaa buu gurigiisa iska tagay nin buu markaa ka daba daruuri lacagta qaado u geeyo hadaad aragtaa ninkaasi waayo dhulka uu ka yimid dhul xoolaal ayuuha wax lacag kama keenine waan ka shikisanahay ka daba tago hadaad ninka aqalkiisa markaad gasho adduunyo iyo lacag iyo dhaqaale iyo wax la cunayo fiican dad ku aragto wax lacag hasiina ii soo noqo buu ku yiri hadaad ka aragto noloshiisu inay tahay nolol adag oo cidhiidhiya oo rafaada oo caynkaas oo gaaja ka muuqatana siib uu yimiday oo laba cisho martii uu noqday baa la yiri wuxuu arkay ninkiyo kimis engegsan khubz engegsan iyo biyo isku cunaya markaa bad warniyo hanagu ag dhimanine dadka kale naga nolosha fiican martii uu noqdo wax kale agteeda ka heli meeside la xooxda engegsan iyo biyaha man cunaaye adiguna nin dayfaatahe calooshaas ka dhagiyo karimeeside dadka kale u tag buu ku yiri waa ninka Ciraaq ka soo noqday amiir ayaa shil lacag aanan haysan madaxda zamankan ay doorta bay ku leeyihiin oo ku dooranna maxaad qaban marka yaa qalbaan ciyaalka u dhisan buu koor doorta maxay ka dhigan tahay aan shaqaysto ana shaqaysan weeyaan hadduu mas'uuliyadda uu garanayo wasniga iyo culayska ay leedahay doorta ma yidhaahdeen uu ka baxsan lahaa وبحسن لها لأن النجا ما أنت مسؤول نقضة حبار النبي يدعى النبي لبضع مدو بقاضا والنبي قلنا لبضع بكو هذلو يري نكا أمد إذا تلاو قبتا أفضي دين إله أفضي دي السقب والنبي يقولي نكا كوات كين إله سقنا كوات كيب ورسولك يري والدعاء النبي يا حبار النبي لبضع حكم الحياة أبو رسول الله حلكو حي هاي بجرنيين عراق ودبو كسر نقضة أمير شيل العجمة ما هيستو مركو نكيو أركن نكيو تعبان سيء هنا لعقتي ووسط وصودي بعمر أقول لعقتنا أمير كوكا صودي بقاضي بوكين عقاد بدن ويا المركا وسنوات دم يكون ولا انكروا مركا صودي محاك دقا والله أمير كايدو جي وأنا كوكيني هذا كوتلا مركاسو إنا لله وإنا إليه راجعون ساسو إنا لله وإنا إليه راجعون islaantiisii oo gadaashii safadhida ayaa tiri war ma amirka muuminiinta ayaa dhimashadiisa lagu soo sheegay ma masiibo ka weyn yaa timidey ma ciidankii muslimiinta xadka islaamka jooga la soo jabiyo laga adkaaday haddana ma masiibo ka weyn baa dhacday buuri oo hadee labada aysan dhicin masiibada ka weyn ee dhacdad ka inna lillahi aysan maxay tahay wuxuu adduunyada oo socota aqalka igu soo gashay si aakhiradeeda ay iga fasaadiso inagu adduunyada ma ku faraxnaa mise waa كأن مصيبة نورقنا مثلا ليلة القدر بنورقنا صحابة رسول الله ذاتي قلبك وقوة ناكسنا الدنيا مركي أوتي معدو وعيوارك يندباتنا قلقوا صوب الشيء حاسكيسونا قبل إلهي كل حدا بيحيد والتقية أو صالح هذا بيحيد وعيتنا وما الدنيا كو سو غشها او maxay waatan bay jiri waatan buu ku yiri kale xoolaha la soo diray xageen geeya xaan ku qabta xaan ku sameyn karnaa waa kane وعيتنا da ka saar aqalka waxay ku yiri da aqalka inaan ka saar igu caawi ana kugu caawin bay tiri soo fadhiiso ree fulaan waa agoon inta u geey hooyo u geey islaantaas waa armal oo ninkeygu ka shahiiday hoo inta u geey taas waa miskiinad xoolo ma haysato inta u geey kuwaas waa ducafa way bukaan inta u geey siday lacagtii labadooduba u qaybinayeen baa la yiri habeenkii bila cashay ku soo dhaceen labadoodii hatta waxay ku cashayaan kalama soo harin baa la yiri لأن أوديك إسلام الزمن كا ملك اللي يوجدين إنك الزمن كنن والله كلا جدا هذا إسلام تو آخره وجد أوديك هديه وجدا هذا أوديك آخره وجدين إسلام هديه وجدا لذلك الرشين يدحدي كبحان مركع اللي لبده والد هذا كلا فكر نقدان رشوا دحدي كبحان وضيع ميا نسلف قبل ninkeedii ba iyay ku aragtay oo kala haya markaa bay ku tiro xageed u kala haday wuxuu dhawaano
maharadii waxbaan soo raadinoo kasbi baan noo doondoonaya markaa bay ku tiri ilaahay ka baq ittaqillah ilaahay nagaga baq bay ku tiri waryaa aniga ilmahayga gaajada adduunka waan u adkaysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkaysan kari mayne luqmad xaaraan aqalkayga soo gelin bay ku tiri aniga ilmahaygaas gaajada adduunyada waan u adkaysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkaysan kari mayne luqmad xaaraan aqalka hayga soo gelin waa zamankii dadku ay wada wanaagsanaayeen mujtamaca raggooga iyo haweenkoogu meel keliya u jeedeen ilaahay bay ku talagaleen inay la kulmaan aakhira inay jirtay ku xisaabtamayeen markaa wax waliba cunayaal may hayn waxay haayeen dad xalaal mirad oo ilaahay ka baqaya bay haayeen dadkaas